waxaan rabaa inaan u tacsiyo dhammaan ummadii islaamka ahayd dadkii masaakiinta ahayd oo ku dhintay maxaan ku raadayay qaraxii ka dhacay Muqdisho. Fanaanada Nasteexa Indho ayaa tacsi tiiraan leh hawada u marisay shacabkii Soomaaliyeed ee ku dhamaaday qaraxii maalinimadii shalay ee ka dhacay magaalada Muqdisho gaar ahaan iskoyska Ox Control Afgooye. Nasteexa Indho oo aad uga murugaysan qaraxaasi ka dhacay magaalada Muqdisho kuna baaba'een shacabka Soomaaliyeed ayaa waxay Alla uga bariday dhammaan shacabkii halkaasi ku dhintay in uu jannada Firdawsa uu ka waraabiyo. Qaraxa ayaa marka uu dhacay waxaa sidoo kale aroos ahay fanaanada Nasteexa Indho iyadoo aroosana hawada u marisay shacabka taasi halka fanaaniinta qaarna ay ku jeesjeeseen arrinkaasi. Nasteexa Indho oo ka waramaysa arrinkaasina. Bismillaahi Rahmaani Rahiim. aad baa idin salaamaya asxaabtada qaaliga ah dhammaantiin halaha qof maxaa la dhahaa waxaan rabaa inaan u tacsiyo dhammaan ummadii islaamka ahayd dadkii masaakiinta ahayd oo ku dhintay maxaan ku raadayay qaraxii ka dhacay Muqdisho. ilaahay waxaan leeyahay ilaahay ha u naxariisto inta mataqaanaa dhaawacantayna ilaahay ha u boogadhayo oo ilaahay ha caafiyo intii dhimatayna ilaahay janno Firdawsa Allah ka waraabiyo. dhibaatadana ilaahay naga dulqaada dhammaanteen wayna wada haysataa qof kaliya lagama dhiman anaga dhan bay naga wada dhinteen. marka waxaan leeyahay ilaahay dhibaatada naga wada kor qaado intii dhimatay Allah u naxariisto annagana ilaahay nooga daba naxariisto inta xanuunsanay dhaawacana ilaahay caafimaad sariica ah siiyo aamiin insha Allah. waxaan rabaa halkaan inaan uga mahadceliyo dhammaan faamilka labada dhinacba habeenkii 27 ani odagayga isla socono labadeed waxaan leenahay thank you for everything. dadkii sharafta lahaa faamilka labada dhinac fanaaniinta asxaabta shakhsi baan idin mahadcelinaya dhammaantiin insha Allah. Fanaanada Nasteexa Indho ayaa waxay tacsida soo dirtay iyadoo isbuucii hore ee arooskeeda ku jirta. daawadayaal haddii aad nagu cusub tahay fadlan nagu soo biir oo subscribe saar channelka Soomaalida Shidan haddii aad ka heshayna la wadaag asxaabta intaan qaybteeda kale ku kulmi doono nabadgelyo.